والله بالله طلعي وحن اوغahay cidima oga sida wax loo galo waxaan sameeynaya sameyn kara bari dhacay doonta hadaba waxaan u sheegayaa magaraysa huwanta iyo reer bari walwal iyo waxa halka isku urursanaya tulaala dambeeynaanu jirin la saarad hada oran lahaydeen dumar baa ku dhintay iminka laga baxo hadii la oran lahaa maati baa ku dhimatay iminka laga baxo ninkii Faysal Cabdi Bootaan markan la yaacay saare hatta garaadka guud ee asraada ku daba xidhataan tiraahdo Allahu Akbar ee ku atahayadsataan magaraysa isagoo jeebaysan ayaa la keenaya magaraysa BM ku toos buu isu daba maraya meesha laas aano ugu leeyahay waxaan u sheegaynaa waxay dumar inay iskaga baxaan waxay maatiya ay hadhow la oran dooro waa lagu laayay inay ka baxaan magaalada ayari waa baabaaysa markii hore anaga dhisnay oo Soomaaliland anaga magaraysa laamiyadan dhignay anaga guryahan dhisnay haddana gacantayada aan ku duminayna waayo tulaale waa dhamaaday waxay dumara ama maatiya ee jooga ha ka baxaan waxay rag laakiin waa ku holcanaya ee direys xidhan ee caada qaataa ee la soo ururiyay ee cagdheerta si toos ah magaraysa loo ruqaansanaya loo cibaadeysanaya waxa weeyaan hore waxaan u lahay anagoon gantaala dhaca iyo haysan qori gaaban hashan gaada weyn oo libaax uga gaboon waayay inaan guraya cawl uga tagaa waa wax soo guray dawladii dhamayd ee siyaad bare iska daa magaranaysa infantry kaliya haysatay weerarkii cirka oo diyuurada ahaa oo haysatay magaranaysa infantry-ga dhulka oo xoogiisu intuu leeyahay la garanayo oo haysatay gantaalaha kuwa gudub u dhacayo kuwa chief u dhacaba waxa ka xoreeyay koob iyo 9 nin oo magaranaysa SLM oo baxay maantana iyadoo magaranaysa ay Soomaaliland kaarayaashii wadato kuwa ka qabsatay qaar cusub oo hubka casriga ah ay wadato ar waxaan ku leeyahay loo bixi maayo waxana toos loo gelayaa Garowe halka dumarku ay ka dabaaldegayaan waxa arki doontaan isagoo calanka Soomaaliland ka babanaya magaalada yar ee maanta ay kolba ku soo ururayaan ee ay ku soo yaacayaan wax tulaalaha dambe loo gelaya ma jirto haba yaraatee wariyo waxa idin sheegay horta anagu rag baroorta iyo dad calaacala iyo dad ilham xana loo qabtay maxay waxaan u dhaceen midnihin noo kama baran Sheekh Isaaq baan la yiraahdaa brigade dhalay baanu nahay wardana baanu nahay bir xadiid baanu nahay idinka hadii nin la idinka xariiqo oo ay xabadi madanayso waa garanaysaa inay Garowe inay baroor ahayd ilaa ma iyo ma garanaysaa kilalka shanaad iyo ilaa ma xamar inay baroor ahayd waa ogeeydi laakiin anaga hadii aanu nin haraynin rag baroorta ama calaacala ama codsisan laga keeno waa ka weyna maanta waxa qabateen oo ma garanaysaa gacanta si kastaba soo galay gacantiina soo galay ninkii la oran jiray Faysal Cabdi Bootaan sidoo uu hadlayay ee libaaxnimada leh ee raganimada leh ee kartida leh oo codkarnimada leh ee ma garanaysaa bilaabaqdinta ee bilaawarwarka waa arkaysay waxay dhici doona bari ay naga xiga waxaan leeyahay in aynu ma garanaysaa wax yar aynu ku mashquulo ma aha inaanu ilaahna waxba la basaasay waxba aan kana ma garanaysaa maba aha kor baynu u baxaynaa war ciidanka qaranku mar walba guul buu keenaya haddana waa guuleystay ganankii dambe sidoo waxay waynu la soconay kaliibada mar walba waa la dhigayay baabuurta la qabtay waynu arkaynay dadka yaacay waynu arkaynay dhaawac la sida waynu arkaynay aroortana iska raacinta un baa hadhay in loo luqluqo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Saciid Maxamed Muuse waxa uu mahad celinayaa dhaqaatiirta sida sharafta badan ay ugu adeegeen Soomaali Syrian Hospital oo ay tahay markii labaad aan ku umulo anoo 7 sano aan dhalin dhakhtaradeyda ma sha Allah oo idaaweysay 2022 bishii 3aad gabaraan ku umulay xalay oo ah bishii 6aad 2023 ma sha Allah wiilan ku umulay anoo bilaa xanuun la'aan iska hurdaayo iyadoo la hurdaa meeshaan la iska dhalaa waxaan leeyahay dadka reer Muqdisho isbitaalkan ilgoon u yeeshta ku soo dhawaada Dr. Safa Maxamed oo si wanaagsan kugu adeegayso adigoon wax u dareemin xanuun la'aan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفضل لله الحمد لله والفضل لله تمت ولادة سيدة سعيدة بالليل طبعا هي طلبت انه تولد بدون ألم ولدناها بدون ألم وكان المولود كويس كان وزنه 3.5 وتم ارضاعه بعد الولادة وهي هلا بخير وسلامة والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم سبن ولي بقيتك Somali Syrian Hospital سكر وما أردت